qodobada aad ku maali doontaanna waxaa ka mid ah ugu yaraan 20 qof oo ku geeriyootay qarax miino oo ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho. gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland oo sheegay in uu Faysal Cali Waraabe kala qaybinayo bulshada Somaliland. dowladda Masar oo lagu eedeeyay inay jabisay cunaqabataysi saarnayd Soomaaliya. qodobada wararka dibadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona dalka Mareykanka magaalooyinka ugu badan oo bandow lagu soo rogay waa 30 bisha May sanadka 2020 dawadayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan. aan ku bilaabanay ugu yaraan 20 qof ayaa ku geeriyootay halka dhowr iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qaari ay miina kula kacday inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo magaalada Afgooye. dadkan oo saarnaa baabuur caasiya ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan ku dhawaad 20 qof halka ay ka badbaadeen dad yar oo la fara ku tirisa. waxaana dadkaasi geeriyooday ay saarnayeen baabuurkaasi kadib markii miinadu ay haleeshay. dhammaan dadkii saarnaa way ku geeriyoodeen marka laga reebo 3 qof oo halkaasi ka badbaaday. dadkan geeriyooday ayaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan cusbitaalka Madiina iyadoo dhaawacyada la kala geeyay goobaha kale ee magaalada Muqdisho. inta badan goobaha muwaadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa lagula beegsadaa qaraxyo dadka wadadaasi maraya iyadoo ciidamada dowladda iyo waliba dadka shacabka ay qaraxyadaasi inta badan haleelaan. gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Baashe Maxamed Faarax oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ku eedeeyay in uu wado kala qaybin. Faysal Cali Waraabe ayuu sheegay inuu kala qaybinayo bulshada Somaliland waxa uuna sheegay in sharciga la tiigsan doono. Baashe ayaa wuxuu intaas ku daray inay isku hayaan gudoomiyaha xisbiga waa Faysal Cali Waraabe in uu doonayo lacaga ay loo kordhiyo xisbigiisa kaasoo uu sheegay inay ka jareen baarlamaanka Somaliland. maalmo ka hor ayaa waxaa gudoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe uu warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa uu ku eedeeyay Baashe Maxamed Faarax inuu wado doorashada Somaliland inuu aftuba waxa uu intaas ku daray inuu Baashe waa deegaanada laga soo doorto uusan tagi karin. dowladda wadanka Masar ayaa waxaa lagu eedeeyay inay jabisay cunaqabatayntii saarnayd Soomaaliya. dowladda wadanka Masar ayaa waxaa dowladda Itoobiya ay ku eedeysay inay jabisay cunaqabatayntii saarnayd waxayna sheegtay in ay soo iibsatay ama soo gaarsiisay hub fara badan dowladda Soomaaliya waxayna dowladda Itoobiya ka muujisay walaac xoogan. xukuumadda Addis Ababa in uu wado cunaqabatayn ka dhana Soomaaliya oo kaasoo ah inuu jabiyay cunaqabatayntii saareed wadanka Soomaaliya in badan. waxaana intaas ku dartay dowladda Itoobiya inay qaramada midoobay ee midowga Afrika u gudbin doonto dacwadaasi ka dhanka dowladda Masar oo sheegtay inay jabisay cunaqabatayntii saareed Soomaaliya. qodobada wararka dibadda waxaa ka mid ah inta badan magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu soo rogay bandow xoogan kadib markii banaanbaxyo rabshado wato oo bilileeqa iskugu jira ay halkaasi ka bilowdeen maalmihii ugu dambeeyay. dowladda Mareykanka ayaa waxay badda ku soo rartay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Washington, Georgia, Virginia iyo magaalooyin kale oo ka bardankaasi Mareykanka waxa ayna uga go'leedahay inay ku yareyso rabshadaha halkaasi ka dhacaya. dalka Mareykanka waxaa ka socday in dhawaadba rabshado xoogan kadib nin madow ay ku dileen booliiska wadankaasi Mareykanka kaasoo caro xoogan ay ka dhalatay iyadoo goobo ganacsi iyo saldhigyo booliis la qabadsiiyay dab. waxaana madaxda Mareykanka ugu horeeyay madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump uu sheegay in gabi ahaanba aysan u dulqaadan doonin wax halkaasi ka dhacaya. duqa magaalada Minneapolis ee dilku uu ka dhacay Tim Wallis ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay u yareenayaan rabshadaha halkaasi ka dhacaya. guud ahaan warkii caalamka oo aad kala socoteen channelka Abshir Show waanaga inta daawadayaal waxaan leenahay nabadgelyo. channelkan subscribe saartay ku soo galaan warar xaqeeyo Soomaaliya ku nabadgelyo.